يا بروا الشرف حب ماله أجوا وين وقفوا قبان كران حكم كذا ولا ما أنا عاد الدائرة ما رأي جود بان أجاسم جود بان سيدم كان نقضي ما رأي جود بان إسناي كان نقضي مشروع مرير ريبان ما رأي جود كهاودسي وزير بان كان نقضي حدنا وحان أركي أنتي دبدها عن شري سيفل سيرفنتها وحيالا enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suave. Lanki sabaro se jehele sidi fadani santiwa sagiri gabi ki surme sumud southwest salangsara langar kesudi barwaga walid tasawirin suntawa calanka southwest salaanta saara diga koowaatan saraytoon Somali wiinga lanki sabaro sidey hele sidi fadani sasantiwa sagiri kabi ki insurme sumud southwest salangsara maxaa horta ku muuqda markasta oo dhaliilo ah oo adiga gaar kugu dareenta dadku waxay tilmaamaan cali waa kaliya aqoon-yahan hadii wax la fahmaayo hadii wax la bartay isaga un baa maxay tahay dareenka gaarka ah ee aad qabto anigu dareenka gaarka ah ee aan qabaa nin saahid qamaan la oran jiray oo gabayaaya yaa 200 oo sano ka hor gabay tiriyay rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuusi masa inaanu nahay oo taladu meerta noo tahay anigu maxamed siyaad bare waa isharf xub meelo ugu waaweyn oo qofku qaban karaan xukunkaaga waliba aan aad u daayir maareeyo guud baan agaasimo guud baan siidam ka noqday maareeyo guud baan isnaay ka noqday mashruuca mareer reebaan maareeyo guud ka oo dhisay wasiir baan ka noqday haddana waxaan arkay intii dibadaha aan jiray civil servant waxyaalo aanan arag yaan markaan wasiirka haan noqday si daacadaan rabay inaan ula shaqeeyo maxaan siyaad bar isagoo aan ba wadanka ciidanku uusan qabsan baan anigu maxaan siyaad bar yaqiin ula shaqeeyo si daacadana runtii waa rabay inaan ula shaqeeyo annaga iyo niman oo waaga isagu uu yiri waa reform waa dad raba systemkana kamida wax bedel gudihiisana inay keenaan maxaan siyaad bar Allah u naxariistay isaga markii dambe cadow noo arkay wuxuu go'aansaday inuu xidho warkii waa helay anigu sabab aan u xidhnaado oo aan xabsi ugu daayimo waayo cuntama weyday waa wadanka waa ka baxay mucaarad baana laakiin shabahdihii Itoobiya ka soo duulay anigu midna ma gelin midda kale anigu aan mar walba ku buuxay midnimada Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliyeed yaan anigu ku buuxay mucaaradka Itoobiya iyo meelaha ka soo geeyay Cabdullaahi Yuusufiyan waa midaan isku diidanay mar walbana isku diidanay hadduu wadanka isagu markii dambe intuusan isagu qabana anu prime minister baan wadanka ka soo noqday waxa aan qabana anu nin qarsada meehi kalsooni baan uga hadlaa wax ummadda ka dhaxeeyana wax la dhuundhuuman karo ma aha anigu keligii baa wax gartay cid ay taqaanaa iguma tilmaanto nin mar walba diyaar u ah aan doodno aan isqancino yeelan ka gaban reer Kismaayo anigu fikirka ah ee runa sheegin beena sheegin waxaad sheegtaan hawaayin anigu kuma dhaqmo anigu intaan noolahay haddaan Soomaaliya ka quusto waa meesheeda haddaan weligay wax af Soomaali ku hadlaya ana weligay dib u arag waa noolaan karaa haddana waxay dhibaya caruur baan dhalay nasiib darro af Soomaali ma yaqaanin waxaan ka jeclaan lahaa inaan Soomaaliya keeno oo ay ku noolaadaan ma jirto xamdiyay jawaabteedu waxay tahay waxaan eeday warda reerka sida laga daayay war Cabdiqaasim waxaan isku qabanay ugu weynad arinta Itoobiya in la khayaameynayana waa arkay waa isku qabanay huwaha iyo been
yaa loo akhri wax badan baa iska bedelay xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya anigu waqtiga hore taariikhda hore aan ka hadlaya Cabdullaahi Yuusufna taa Cabdiqaasin aan isku diidanay iyo isagoo ciidamo Itoobiya wata ku soo hogaamiya dalka yaa anigu aqligayga wuxuu markaa siinaya mucaarad maxaad si aad barinin daaroodu ahaa daaroodnimo uguma heelin Cabdullaahi Yuusuf daarood ka soo baanu si badan oo badan isu ahayn haddana uguma aanan siinin mabda baan anigu leeyahay waxaan anigu arko inay wax dhaqayaan yaan si qayaxan u jecelahay in miiska loo saaro looga doodo haddaanu isku afgaran weyno nin u hamrada anigu meeyay markaa haddii hadda xamar dad badan baa ka walwalsan la warsaana uma hadli kartid waxa ma oran kartid xamar waa la isku dilaa anigu already waaba dardaarmay American citizen waa ahay Mareykanka safaaradooda halka joogtana si qayaxan baan ugu sheegay haddii danab dhaco oo igu dhaco anigu cid baan u haystaa baan xamar joogta waana sheegtay waxay yihiin iyo cidda yihiin cidda igu soo dhiiranaysa ee rabta adiga taa su'aasha dhaaf anigu waxaan ku sheegayaa layma saama maaragtay jiidayo baadiyaha saamaha haddii la jiido waxaa la rabaa xoolaha in la didiyo moogta aniga xamar cidna uga baqi maayo cidna marti ugama yahay cidna magan ugama yahay markaan anigu ka quus markaan xamar ka quusto anaa toos uga dhaqaaqayo uga tegaya laakiin hebel iyo hebello yaa kaa kaxaynaya hada ma yasiir taa cidna ka akhrisan maayo